السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idiin soo gudbin doono. Waa barnaamijkeennii galabnimo waxaynu ku soo aruurinaynaa macluumaad iyo warar. waa galabnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 19 Juun 2025. haddaba qodobada barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid ah Iiraan oo mar kale nagta ka saartay Israa'iil. gantaalo ayaa lagu weeraray 271 ayay sheegteen inay ka dhaawacmeen maanta kaliya oo khamiis ah. haddaba xaalku waa sidee? Israa'iil iyadana weeraro ayay ku qaaday Tahraan. Ruushka oo la sheegay in uu saacada ka hor heegan geliyay maraakiibtiisa quusta ee nuclearka xambaarta. waa kuwa ugu halista badan nuclearka uu haysto Ruushka. wuxuu sidoo kale fariin cad u diray Netanyahu iyo kooxdiisa. haddaba Ruushka maxaa laga taabtay, maxaa laga haleeyay? tafaasiil aan idin hayaa. madaxweynaha Ruushka iyo madaxweynaha Shiinaha oo iyaguna maanta telefoonka ku wada hadlay kadibna fariin u diray madaxweynaha Mareykanka. haddaba maxay u sheegeen? maxaase ka socda bariga dhexe? wararkii ugu dambeeyay ayaan idin hayaa. Netanyahu oo maanta soo baxay isagoo booqday meeshii weerarka uu ka dhacay isbitaalkii ciidamada lagu daweynayay iyo meeshii saldhigga ahayd ee u dhoweyd. haddaba isagoo halkaa ku sugan ayaa waxaa dhacay jug culus kadibna wuu carari gaaray. aan aragno odaga geesinimadiisa. אני אמרתי qodobadaas ayaynu barnaamijkeena galabnimo ku soo qaadanaynaa. inta aan ku jirno haddii warar cusub soo dhacaanna waan idinla socodsiinaya. soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena. waa khamiis galabnimo ah. haddaba barnaamijkeena ayaynu guda galaynaa. Iiraan waa ogeyn barnaamijkan kii ka horreeyey wacdarihii ay dhigtay xalay ilaa saaki aroortii inay isticmaashay gantaalo la yaab leh oo uu ugu weynaa gantaalka la yidhaahdo sijiil. haddaba maanta ayay markaa soo laabteen. ilaa dhowr iyo 10 gantaal ayaa la sheegay inay ku weerareen iyo drones mar kale waqooyiga Israa'iil iyo deegaano kale. Xayfa iyo dhulkaas ayaa nagta laga saaray. haddaba sidee waxu jiraan? haddaba aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay khasaaraha ay geysteen. haddaba wakaaladaha wararka oo soo xiganaya warbaahinta cibriga ama yahuudda waxay sheegayaan 271 Israa'iiliyiin inay dhaawacmeen weerar Iiraan ay ku qaaday maanta oo khamiis ah. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan 271 Israa'iiliyiin ayaa la sheegay in ay markaa ku dhaawacmeen, iyadoo la sheegay 4 ka mid ah in xaaladoodu ay garaab tahay. haddaba weerar gantaalo Iiraan ay ku qaaday khamiista maanta ah meelo kala duwan oo ka tirsan gudaha Israa'iil. kanaalka 12 la yiraahdo Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa sheegay ugu yaraan 271 inay ku dhaawacmeen weerarka khamiista maanta ah mar kale lagu soo qaaday Israa'iil. haddaba waxaa la sheegayaa Tahraan inay mar kale soo riday koox gantaalaheeda ka mid ah iyo drones, iyadoo markaa weeraro ku soo qaaday Tel Aviv iyo deegaano dhaca dhanka waqooyiga oo ay ku jirto magaalada la yiraahdo Xayfa. marka meeshan maxaynu ka baranaynaa? Iiraaniyiintu waxay noo sheegeen inaad la socotaan hawada markaa rabnaa tagaynaa waa adeeganaynaa. gantaalihii halista badnaa ee gantaalaheena ka hortagi jiray waa baabi'in. marka hawadu way qaawanteedheen, waa maftuux. maalmo ka hore Israa'iil waxay tiri hawada Iiraan iyaduna waa maftuux, diyaaradeen inta galaan ay duqeyn karaan. qolo walba marka hawadii saqafka laga qaaday. marka hadda waxaa leeyahay waxa ugu wacan Iiraan maalin cadeey inay dhowr iyo 10 gantaal ku tijaabiso. waliba kuwii joogta cuslaam ma aha waxa adeeganaya. ciyaal xaafadeedkii kuwii ahaa kuwii maaratay qaybaha dhexe ahaa waay Fataax iyo maaratay nimankan oo waaweyn maaratay sijiil iyo alaabtaas ma ku jiraan. kuwa kale oo aan la tijaabinayay maanta haddana lagu fasaxay. marka kuwiya waxa leeyahay waxay nagta ka saareen goobo muhiima oo ku yaala Tel Aviv iyo maaratay iyo halkaas maaratay ku yaalaan Xayfa iyo dhulkaas
ayaa la garaacay. waayahay afhayeenka marka ciidamada Israa'iil ayaa marka hadlay markii garaacistaasu iyo waxaasu ay dhaceen. haddaba marka aan idin tuso telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay afhayeenka ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in nidaamka Iiraan ka jiray weli ay awood u leeyihiin inay gantaalo ku soo weeraraan Israa'iil. afhayeenka ciidanka Israa'iil waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin inay markaa Iiraaniyiintu inay diyaar u yihiin inay dhibaato gaarsiiyaan Israa'iil wax kasta oo ay ku qaadanayso. laakiin waxa uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay qayb ka yihiin badbaadada iyo soo saarista dadka weli ku hoos jira guryihii la garaacay iyo kuwa dhaawacmay si markaa isbitaalada loo geeyo kuwaasoo wax ku noqday sawaariiqda Iiraan ay soo garaacday. waa afhayeenkii ciidanka. waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah wuxuu ku leeyahay Iiraan weli awooday leedahay gantaalay nagu garaaci kartaa oo ma oga miyaa isaga marka ma wax kala loo sheegay ma waxa la yiri Iiraan waa u dhamaatay khalaas waxba ma soo ridi kartaa ma leeyahay iyadoo habeen walba dhagta ku hayso. marka wariyaashu way yaabayin mugtaa wuxuu leeyahay Iiraan weli way awoodaa inay na garaacdo. ciidankana qayb ka mid ah ayaa waxaan u dirnay inay dadka guryaha burburay hoostooda ka qaylinaya inay caawiyaan qolyaha gurmadka oo ay soo saaraan. shaqadaasaan wadnaa Iiraan. marka halkaa marka waxaa ka jira waxaa leeyahay tabardaradii Iiraan ay sheegaysay ayaa banaanka soo dhacday maadaama meeshan la iska garaacayo. sheeko la yaab leh marka dhacday qayb kale oo barnaamijka wararkan soo ururiya ka mid ah. maanta waxaa la yiri Ruushka wuxuu heegan gashaday maraakiibtiisa nuclear-ka gujisyada dhulka hoostood badda hoosteeda mara. waa kuwa ugu halista badan ee ay Yurub iyo Mareykan ka baqaan. Ruushka wax kale looga maqbaqo nuclear-kaas oo waliba gujiska markii saas loo kiciyay oo ayaga dhanka iyo bariga dhexe loo soo jeediyay ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushku ay war soo saartay. marka Ruushku waxa la yiri maanta xagee laga taabtay isla markii Putin wuxuu wacay saaxiibkiis Shiinaha. kii Shiinaha warbixin hore soo saaray oo Israa'iil ku eedeeyay inay iyadu mas'uul ka tahay waxa dhacay wax aan qaanuun ahayna ay samaysay degdegna inay dagaal ku joojiso. fiiri waa saddex geesood sheekada. barnaamijkayga hore waxaan idinku sheegay Putin iyo jagaxiirka way soo hadleen isku waqti. Chinese-kiya dhimanayeen. Chinese-kina waa turtasaaka hadda dhow hadla isagana warbixintiisu waa la keenay. markuu isagu hadlay kadib isaga iyo Putinna waa wada hadleen. Putin marka heegan uu galay Israa'iilna hanjabaad u diray. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrimaha Ruushka ka qaylisiyay ee ay aadka uga caroodeen. haddaba Ruushku waxay yiraahdeen khubaro Ruusha ayaa waxay ka shaqaynayaan maxadada la yiraahdo Boshhar oo macnaha nuclear-ka ah ee Iiraan ku taala. waa meesha Ruushku uu shirkada ku yahay. marka waxay sheegeen inay digniin u direen Israa'iil oo ay yiraahdeen haddii meesha ay wax gaaraan xaalka waa xumaanaya yiraahdeen. u fiirsada sheekadu waa noo socotaa weli. waxaa leeyahay haddii xaaladdu ay meesha wax gaarto oo dhibaato ku dhacdo xaalku marka ma sii jiraya Israa'iil ma joogays nuclear-ka markaas la dhaqaajiyay. sheekadana waxay ku timid haddaan idin tuso waxaa leeyahay telefishinka Al Arabiya wuxuu leeyahay xaalad ayaa la galay qatara oo ku saabsan Boshhar nuclear-ka meesha uu yaala Iiraan. haddaba afhayeen u hadlay militariga Israa'iil ninka la yiraahdo Afakhay Adraci ayaa sheegay in meeshaas Israa'iil ay duqeysay. marka Ruushka uu cirka maray uu xanaaqay waa markaas. laakiin haddana waxaa leeyahay mas'uul militariga Israa'iil ka tirsan ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in uu qalad ahaa hadalka afhayeenka uu ku hadlay oo ahaa in la duqeeyay deegaankaas mana aynaan duqeyn u dhahay oo wax dhibaato anaga Ruushka meeshiisa uma geysan.
iiraanna way caddayso waxay tiri meesha waxba ma gaarin ruushka markaasuu degay khubaraa noo joogtuu yidhi meesha booshaar la leeyahy sheera ku nahay annaga iyo iiraana isla leh meeshaa agteeda nuclearkaas agtiisa ma imaan kartaanuu yidhi waa laysku baaba'a markii laysku baabi'i lahay waayu markaasay la soo booday israa'iil waxay tiri afhayeenka qalad u galay meel kaloo ku qalday oo aan duqaynay oo nuclear oo iiraan keliya ay leedahay marka booshaar ma aha booshaarku waa meesha ay shirkada ku yihiin ruushka iyo iiraaniyiin marka sheekadaas iyaduna halkaasay maraysaa xaalku marka wuxuu marayaa meeshii ugu xumayd qolo walba waxa waaye saacad daqiiqad ah wax walba isku bedeli karaan bariga dhexeshaasha amaartay gantaaluhu ku yihiin ruushka wuxuu taagan yahay xalayna waa idiin digay meeshaas aniga sheera ku ah maraykan ha yimaado ama cid kale ha timaado wallaahi nuclearkaas haddii laysku taabto waa la kala guura u taagan yahay putin isla markii putin wuxuu telefoonka ku dhuftay saaxiibkiisa shiina haddaba marka aan idin tuso telefishinka aljaziira wuxuu leeyahay itisaal ruusi shiiniyaa dhacay macnaha xiriir ruush iyo shiinaha dhex maray oo telefoonka ayaa dhacay waxaa leeyahay marka madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo dhigiisa shiinaha ninka la yidhaahdo Xi Jinping ayaa waxay sheegeen oo ay cambaareeyeen si toosa labadoodaba weerarada Israa'iil ay ku qaaday Iiraan haddaba waxay sheegeen oo ay soo saareen in xal diblomaasiyadeed uu yahay waxa kaliya ee sheekada lagu soo afjari karo oo aanu ahayn xal military ma shaqaynayo dheh haddaba wadahadalkaas dhex maray waxaa caddeeyay Kremlinka haddaba waxaa la sheegayaa la taliyaha dhinaca diblomaasiyadda madaxweyne Putin inuu markaa sheegay oo uu qabtay shir jaraa'id magaalada Moscow waxaana uu sheegay in xaaladdu ay markaa tahay mid waa tahay marka la taliyaha madaxweynaha ruushka Vladimir Putin wuxuu leeyahay waxay u sheegeen Trump ay la hadleen waxay ku yiraahdeen waxaan ka codsanaynaa dagaalkan inaadan isku gelin labadan hal isu daayay dheh haddii kale wax ka weynaa gobolkan ka dhacay dheh sheekadaasu marka maanta ayay waxa soo dhan dhacayaan haddaba marka qadar xayisiisa kadib waxaynu ka hadli doonaa ninkii Netanyahu ahaa maanta sheeko la yaab leh ayaa ku dhacday Gaza yaa burburiye yaa baabi'iye marka meeshu wuxuu leeyahay isbitaalku wuxuu ka raadinaa marka qeyl marka hadalladiisa waxaa ka mid ah haddaan idinla wadaago Netanyahu wuxuu sheegay Trump inuu hadda kaalmaynayo dagaalka ka dhanka Iiraan wuxuuna sheegay in Maraykanka uu u ilaaliyo hawadiisa wuxuu yiri diyaaradaha Maraykanka waxay la joogaan diyaaradaheena mar walba hawadeena ku jiraan waxay waardiyeen majaal jawiga leedahay hawadeena gantaalaha soo gala maxaa la waardiyeenana waa laga adeeg Maraykanka xataa ku jiro leeyahay iyo annaga iyo wixii oo dhan waa shawaardiyeen marka waxaan ka codsanaa u leeyahay Maraykanka inuu dagaalkan soo galo oo maartay Israa'iil uu difaaco si markaa hawshan loo soo afjaro macnaha nuclearkan waxa in la iska soo afjaro rabaa isagu markuu muxuu dalbanayaa in Maraykanka uu dagaalku soo galo sababtoo ah meesha marka waxa ka muuqda sida aayatullaahiga uu shala sheegay ducfiya ka muuqdo ma iska kaana celi karaan Maraykan hay maadilay Netanyahu oo maanta soo baxay isagoo booqday meeshii weerarka uu ka dhacay isbitaalkii ciidamada lagu daweynayay iyo meeshii saldhigga ahayd ee u dhaweyd haddaba isagoo halkaa ku sugan ayaa waxaa dhacay jug culus kadibna wuu carari gaaray aan aragno odaga geesinimadiisa shiinaha iyo ruushkuna maxay leeyihiin isku aadin meeshaan waa tii Putin iyo Xi Jinping ay markaa sidaa yiraahdeen marka hawshaasu halkaasay maraysaa wararkii ugu dambeeyay aan isugu keenso dubariday galabta intaasay ahaayeen haddaba waa noo sii ururin doonaa wixii warar ay soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa sida caadada ah fakarkiina aragtidiina waa muhiim mar walba waa soo qortaan haddana soo qora sidee idinla muuqataa sheekadan Iiraan ma heli doontaa kaalmo iyo saaxiibo ruush iyo China iyo jeegaxiir iyo ma kaalmayn doonaan
mise warkoodu afoo ku ekaan doonaa haddaba fakarkeena iyo aragtidiina arrimaha oo kasoo qora soo hadla barnaamijku waa naga intaa haddaad cusubtahay subscribe ka ilooban youtube-ka facebook-ana follow garee barnaamijka share garee oo like garee nabadgelyo